ninba waxba ku tilmaamay marka sida magacaygaba uu ku suntan yahay kulli waxaan malaynayaa ciyaaraha dhaantada ama dhaqanka hadii la yiraahdo dhaqanka waa wasiyaabo fara badan yahay especially laakiin dhaantada ciyaaraha dhaantada baan malaynaa kaga qayb qaato yarta dheereeyadaad dhunta marilay sida dhiftaan caloosha ku dhigala sida dhoolka hilaaca ama dhaysta daruurta dhaxyareydayahaygu way ku dhowranayaano kuma dhaafi karaaye dhole dhaxda ma isqabsanaye yalaale kuma dhaafi karaaye dhole dhaxda ma isqabsanaye yalaale afka dhuuxo shaliya dhaabanadan markan dhogowray buu dhiigu boqoli taagay Dhaanto waa ninkan soo hor fadhiya laakiin dhaantadu waa naanays waa Cali Bashiir Cabdi ku dhashay deegaanka Soomaalida habay ka tarjumayso tuultuuliye qabale moogta dhaantada ka soo bilaabay halkaas iyo ciyaaraha muddo badan ku soo jiray oo eega gaaraysa 12 ilaa 13 sano dhaantooyinku waa gobolada ku jirtay oo baad ka soo dhaadhadeen dhulka hooyada lululanay ka soo dhaadhadeen oo sameeyay la yiraahdo saaxiibkay Muuse la xabaalay way waraa laakiin Muuse soo baxay baan u bixinay xabaash baan ka soo saaray mud wadhaanto waxay ahayd wadaniya marka waxaa jirtay mar deegaanka magacyadii gobolada la bedelay marka waxaan ugu dan lahaa inay dadku ku bartaan bulshadu magacyadan cusub ee maartay gobolada loo bixiyay loo kala bedelay marka habeen walba meel labaas badan iyo moodan u yeeshay heeladani haboonay mahooyada gacala ku tidhi ragga heela u tubine gobolka nugub gobolka city gobolka faafan baad ka soo dhaadhacdeen dhulka hooyada lululanay ka soo dhaadhacdeen launaalki lagu dhale dhayda lagu abiya dhaxyar dhuubo dhulka hooyada lululanay ka soo dhaadhacdeen marka gobolada dhan bay wada tirnaysay kursee kooxdan muusigiitunta cadaanka markaan u sheegayay waxaan uga cabirahay waxa ku leeyahay Allah kan waa reegay markaas aan ku reegayga meesha laga soo qaaday soo meesha annada ma reegay baad ku aragteen war reegayga meesha laga keenay waa xaq anaga saasan isku qabsanay marka ayagu waxa laga yaabaa inay dhaqanka Soomaaliga aysan u fahmin dhaqanka Soomaaliga uma yaqaanaan reegaan laakiin waan u sheegnaa reegayguba wuxuu ka yimid xaq anaga Bob Marley ninkii halka aragtay gaaray baashii Afrika xaq anaga ka soo qaaday adeero marka reegayga anaga laga soo gaaray ciyaaraha anaga ninka baadiyaha joogay ee geel la jooga markuu tuu caanaha ka dhargo uu rukaasayo dhaantada tumanayo waa reegay laakiin isagu reegayahan kuma yaqaan adduunka reegay laga yiraahdo muusigiisa marka reegayga meesha laga soo gaaray waa nimanka marada intay geed ka saartaan halkan oo kale intay marada geed saartaan oo gabadh ka dhigtaan oo si fiican u dhaanta tuntaan tumaray shaqaan jiro geel iska raaci jiray marka waxaan leeyahay dadka Swedishka si fiican bay konsertiyada waa xafladaha waaweyn kamuunada iyo degmooyinka oo in baan soo wacda iyagan marka xafladaha inta badan u qabnaa kooxda cadaankaana aad bay uga helaan hadda inta ay la shaqeynayaan muusigayga aad bay uga helaan runaantii